وهاجك داوديال قيبه دنبه برنامجك وردون أيان سو قارني تي في Somali Cable يا توس نقول سعوتان Somali بدن أيا كنول دلك يوغندا كواسيو سيابو كل الدول هالكاسي كنول قار أيا جناعسي كل الدول كل دلكاسي هالك كوا كلنا أي وحكبرتان هذا قيبتن برنامجك وردون وحنكون فلقين دونا حالة Somali كنول دلكاسي يوغندا waxaa stuudiyaha nagula sugan oo nagala qayb galay mahad celinayna gudoomiyaha midowga ardada Soomaaliyeed ee dalka Uganda ee Maqsa Cabduqaadir Cumar Cabdulafiidka ayaa stuudiyaha nagu sugan ku soo dhawow Cabduqaadir Somali Cable Cabditaxqiis waa ku dhawahay adii dhamaan howlwadeenada Somali Cable mahadsantiin waa ku faraxsanahay inaad mar kale noo soo laabatay oo aad ka mid ahayd howlwadeenada ee Somali Cable maantana stuudiyaha aad nagula sugantay aad ka shaqeey jirtay waayahay Cabduqaadir dhawaan ayaad ka imaaday dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala ugu horeyn marka hore guud ahaan waxaad warbixin naga siisaa xaaladda Soomaalida ku nool dalkaas Uganda waa tahay Cabditaxow waxa ku nool halkaas Soomaali badan runtii oo dana kala duwan halkaas u jooga badankood waxa weeyaan dad qaxooti ah oo processyo inay markaas meel kale kaga sii tagaan halkaas u jooga sida wadamada Yurub iyo Canada iyo Mareykanka meel la mid ah kuwa kale waxay u badan yihiin dad arday ah oo iyagana halkaas wax ka barta waxbarashada qeybaheeda kala duwan waxa kale oo kamid ah dadka Soomaalida meeshaas ku nool dad ganacsato ah oo nolosha halkaas fahmay oo degan oo deegaan ahaan ku ah marka waxay isugu jiraan dad noocaas ah oo kala duwan marka meel kala duwan way ku nool yihiin marka laga tago caasimadda Kampala oo kale gobolada fogfog oo kale marka aad meel walba dad Soomaaliya ku arkaysa dad Soomaali badan degan haddii aan kala qaadno marka sidaa sheegtayba siyaabo kala duwan ay dadka Soomaalida halkaas ugu nool yihiin gaar ahaan magaalada Kampala dhanka nolosha gaar ahaan ganacsiga ka waran Soomaalida heer intee leeg ay halkaas kaga taagan yihiin Uganda marka la eego ganacsigan waa tahay qayso horta xagga ganacsiga Soomaalida waxa weeyaan dad ganacsiga aad ugu fiican waaye ganacsiyo xoogan way ku leeyihiin kuwa dhexe meelo badan oo wadanka kamid ay kaga leeyihiin tusaale ahaan oo kale ganacsiyada xoogan oo Soomaalida ay ku faanaan oo waxa kamid ah meelaha petrol stationska waaweyn oo kale inay Soomaali badan leeyihiin waxa kaloo jirta in shirkadda sokorta soo saartay ee wadankaasi Uganda oo ay ka shaqeeyaan dad badan oo Uganda oo markaas Ugandees ah shaqaale kamid yihiin mise Soomaaliya askaraba gabar Soomaaliyeed aad iyo aad oo shaqo abuur u sameysay intaas oo kala duwan oo dad Ugandees marka meelaha ganacsiga waaweyn ee Soomaalida ku faanaan ay kamid tahay ganacsiyo kale oo yar way ku leeyihiin sida hadii ay noqoto maqaayado waaweyn iyo businesska dukaamada waaweyn iyo waxaas oo dhan way ku leeyihiin meelo gaar oo ay degaan way jiraan Soomaalida way marka la eego meelaha hadda aad tilmaantay ama goobaha ganacsiga sida aad sheegtay batroolka oo kale aad sheegtay ama hay'adaha shirkadaha leeyihiin Soomaalida marka laga soo tago dhalinyarada shaqeysa oo maartay Uganda ku nool ee Soomaalida ma la ogyahay tiradooda dhalinyarada shaqeysa mise guud ahaan dhalinyarada shaqeysa guud ahaan dhalinyarada shaqeysa Cabditaxow dhalinyarada shaqeysa numberkooda rasmiga ah ma hayno laakiin ma badno numberka dadka Soomaalida ee meesha ka shaqeeya oo kale inta badan marka waxa la sheegay dhalinyarada inay leeman u joogaan oo ay safar yihiin way safar yihiin kuwa kalena ay waxbarasho u joogaan leemankaas marka sidee ay ku helaan tusaale ma kaamamay ku jiraan oo dadka leemanka laga siiya ama qofka ma lacag u baxsada waa qaabkeeda sharaxaad naga siiso aad way kala duwan tahay xitaa processka ay kaga sii gudbayaan Soomaalida halkaas joogta ayaa kala duwan qaar waxa jirta caadi qaxooti ah oo halkaas markay tagaan qaxootiga iska diiwaan gelinaya waxa jirta meel la dhahayo Nakafali oo xira qaxootiyo weyn oo kumanaan kun oo Soomaaliya ay ku jiraan iyo dad kale inta iyaguna gobolka ama qaaradda Afrika ah oo wadamadooda dhibaatooyin ay ka jiraan marka laga soo tago kuwaas ku jira xeryaha qaxootiga oo Kampala ka fog meel Nakafali la hayay ku jiraan waxa kale jirta Soomaali kale iyagana barnaamij la hayay isximbaar oo kale ama 5 group oo kale oo inta badan Canada ah
kuwaasoo kale waxay u joogaan caasimadda Kampala u joogaan ma aha dad ku jira xeryaha qaxootiga waa dad magaaladii si caadi ah noloshii caadiga dadka ku nool waaye processkaasna sanado badan laga yaabaa qaarkood inay ku qaadato qaarkood way u suurtagali waxa laga yaabaa inaysan u suurtagalin oo ay dalka dib ugu soo laabtaan qaarna way baxaan marka sidaas ay u kala duwan yihiin way aad iyo dabcan ardayda Soomaalida hadda gudoomiye u tahay gaar ahaan dalka Uganda arday badan oo Soomaaliyeed ayaa wadankaas ku nool oo waxbarasho u aada ama heerar kala duwan ama bachelorka ama masterka ama kuwa luqadaha baranaya oo gobolo kala duwan Soomaalida ka yimaada ka waran xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waa tahay xaaladda ardada aad bay horta u wanaagsan tahay marka loo fiiriyo dhinacyo badan fursadaha ay helayaan iyo waxbarashadooda sida ay tahay waana sidaa sheegto wadanka meelihiisa kala duwan halkan ayay ka tageen inta badan numberka ugu badan waxay wax ka bartaan gudaha caasimadda waxa kaloo jirta jaamacado waaweyn oo ku yaala gobolada qaar oo iyaguna ardadu ay aadaan oo meelahaas ay degan yihiin oo ay waxbarashadoodii iyo noloshoodii ay tahay inta badan waan iska warhayn jirnay mararka qaar waan ku booqan jirnay waa u tagi jirnay ardaydaasi naga fog nolosha marka xagga loo fiiriyo Soomaalida aad iyo aad bay ula qabsan og yihiin waxbarashada marka la eegana waxa weeyaan waxbarashadooda aad bay u wanaagsan tahay oo heerarka kala duwan ee waxbarashada ay Soomaalidu dhigtaan gaar ahaan waxa u badan digriga labaad masterka ay ku badan yihiin bachelorka oo kale way jiraan xitaa mararka qaar PhD oo kale numberkooda waa u yar yahay laakiin waa la helaa dad Soomaaliyeed meeshii ka wada sidoo kale dadka deegaanka ah oo kale ardadii dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe waa ku arkaysaa waxa weeyaan waxbarashada heerarkeeda kala duwan oo dhan waxa weeyaan ardayda Soomaaliyeed halka waa ay ardada marka fursado ma helaan oo waxbarasho oo lacag la'aan ah mise inta badan waxay u badan yihiin kuwa iyaga jeebkooda oo kaliya isticmaalo oo iska bixiya fursadahaas waxay u badan yihiin kuwa iyaga inta badan iska bixiya sababtoo ah aad ay u yartahay numberka scholarshipka ama fursadahaas waxbarashada freega ah inay halkaas ka helaan sababtoo ah fursadaheedana waa ay jiraan laakiin xeyndaabyo ayaa jiro ardaydii celinaya tusaale ahaan oo kale qofka markuu dugsiga sare halkaas kaga baxo waxaa jirta hay'ado bixiya fursado deeqa waxbarasho oo jaamacadaha waaweyn oo wadanka Uganda ah marka qofka markuu halkaas dugsiga sare ku dhameeyo fursadaas wuu imtixaan buu gali karaa wuu heli karaa laakiin ardaydeena inta badan waxa u badanahay dad heerkii waxbarasho dugsigooda sare halkan ku dhameeyay taasoo marka iyadana caqabad markaas ku noqonaysa in ardaydii ay helaan fursadahaasi marka badankood jeebkooda iska bixiyaan soo adiga si gaar ah fiidka aad gudoomiye uga tahay ardayda Soomaaliyeed ee dalkaas Uganda oo aad matasho intee la eg tahay iska warqabka ardayda Soomaalida ee dalka Uganda iska warqabaan dhanka waxbarashada hadii aan lahayd ama dhibaatooyin hadii soo wajahdo sidee iskaga warqabaan ardayda Soomaaliyeed Cabdifatax si wanaagsan ay horta ardaydu isaga warqabaan hadii ay noqoto kuwa caasimadda ku nool iyo gobolada kale ee fog ardayda ku nool ku dhamaantood waxa jirtay platform WhatsApp oo aan lahayn oo ururada ardada meel kasto oo wadanka ay ka joogaan aan ku wada jirnay oo lagu wada xiriiri jiro wixii dhibaato halka la iskala socon jiray mararka qaar waxa jirta caqabadaha xagga nolosha ah oo ardada soo wajahaysa tusaale ahaan oo kaleenta oo caasimadda Kampala waxay aad caan ugu tahay xagga gaadiidka boondada ama mootada labada lug leh motorcycle inta loo garanayo marka shilalkeeda badan ardayda Soomaalida mararka qaar way la kulmaan shilal noocaas ah shilalka waxa ugu jeedaa in mootada oo kale inay shil gasho oo dhibaato ka soo gaarto ama in burcad ay la kulmaan labadaba way dhacdaa burcadna mararka qaar way la kulmaan waxa jirta mar cunug sidaas oo kale inta dhaawac culus nooga soo gaaray sidoo kale inta shil caadiya oo way jirta iyagana xitaa hadda inta lagu guda jiray coronavirus waxa jirta yar nooga dhintay oo shil noocaas oo kale ku dhacay marka shilalkaas way badan yihiin markii dhaawac oo kale sidaas oo kale soo gaaro ardada aad bay isaga warqabaan isbitaal baa la geeyaa dhalinyarada waa la jirtaa isbitaalka waxa weeye ardayba qayb ayaa loola seexdaa xaaladdu aad baa looga warhayaa haddii ay noqoto xitaa dhan dhaqaale ardayda waa kuwa iskaabo oo waxa weeyaan iska warhaya xitaa mararka qaar dhibaatooyinka markay halkan ka dhacaan oo kaleeto waxaa jirtay gurmadyo xagga laga samaynayo marka iska warqabka aad buu u wanaagsan Cabdiqaadir marka Soomaali badan ama dad badan oo Soomaaliyeed markii Uganda la sheego ama Kampala la sheego waxa ku soo dhacday xaafad caan ah
oo Soomaalida ay degnaayeen oo Kasanya la yiraahdo Soomaalida meeshii Kasanyada miyay ku badan yihiin oo sidii u buuxaan mise deegaano kale way ku sii fideen oo hadda la dhigi karo Soomaalida u badan jirta aad iyo aad horta sida sheegtay way xaafadaas Kasanya number 1 ah caasimadda Kampala marka laga hadlayo oo deegaan ahaan Soomaali ay aad ugu badan yihiin xagga ganacsigooda hadii ay noqoto iyo nolosha meelaha ay degan yihiin waxa kale jirta xaafado kale sida hadda Kasanga oo kale oo ay ku taala jaamacadda Kampala International University areas aad hadda waxa ugu badan ardayda Soomaalida dhinacan Makerere xitaa way sii fidayaan sanadka ka dambeeyay Soomaalida waxa weeyaan mararka qaar sida u socoto meel aad isleedahay meesha Soomaali ku arkaysa waxa arkaysa dad Soomaali oo ka hor imaanayso marka way ku fideen la dhihi karaa meelo badan sida hadda Kasanga iyo Makerere oo kale jaamacadda agteeda iyo areadaas oo dhan meel walba waxa weeyaan Soomaalidu way ku badan yihiin oo way degan yihiin sida ardayda oo kale sababtoo ah ardayda inta badan waxay sameeyaan jaamacadaha ay dhigtaan ay ku dadaalaan inay ka agdhawaadaan si waxa weeyaan waxyaabo ugu baaqsadaan aad iyo aad ugu dambeyntii Cabdiqaadir adduunka oo dhan coronavirus ka dilaacay Uganda wadamada uu saameeyay qayb ka ahayd saameynta la eego marka cudurkaas uu ku yeeshay waxbarashadii ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi guud ahaan wadankaasi oo dhan cabdi fatax xaggaas marka loo eego saameyn weyn ayuu runtii u geystay Soomaalida gaar ahaan ardayda sababtoo ah bishii saddexaad ee sanadkan ayay ahayd marka xaaladaas la galayay ilaa iyo hadda waxa weeyaan waxbarashadii wadanka guud ahaan way xirneed marka waad dareemi kartaa gaab waxa ku yimid ugu yaraan 2 semester ah ardaydii oo qofkii laga yaabo xilligan u qorsheysanayd inuu dhameeyo ay tahay in muddo dheeraad ah uu sii joogo marka arday walbana markii halka uu tagayo waxa laga yaabaa inuu qorsho markaasi uu ku tagay marka caqabad ayay ardayda inta badan ku noqotay qaarkooda hadda dalka ku soo laabtay oo markii xaaladda laga baxan noqonaya qaarna halkaasay joogaan laakiin anaga inta badan ardayda waxaan ku wacyigelinaynay in waxa weeyaan waxbarashadooda ay qof walba kulliyadda uu dhiganayo buugaag la xiriira inuu sii wado uu akhriyo wax akhriska inay ku dadaalaan si aysan ugu niyad jabin gaabkaas waxbarasho ee ardayda oo dhibaato maya waxa weeyaan ma jirin ilaa iyo hadda dad rasmi oo la xaqiijiyo Soomaaliya oo caabuqaas coronavirus laga helay ama mararka qaar shakiyo way jireen laakiin qof si rasmi ah ma jirin oo ardayda ah laakiin wadanka guud ahaan waa uu saameeyay waayahay aad buu maasan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed dalka Uganda ee Maqsa Cabdiqaadir Cumar Cabdulafiidka oo maanta martina uga ahaa barnaamijka Wardoon ee Soomaali Cable isla markaasna aan ka wareysanaynay xaaladda Soomaalida ku nool dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala oo dhawaan Cabdiqaadir uu ka yimid aad buu maasan Cabdiqaadir waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Wardoon oo aad ku daawateen wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka barnaamijkan laacana daawadayaal inta kulmi doona waxaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo